waxaan ahay musharaxa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed. ninkani dhalinyarada ah ee lagu magacaabo Yaasiin Maaxi Macalin ayaa xaflad lagu soo dhaweynaya asaga iyo xisbigiisa kaga dhawaaqay inuu u taagan yahay doorashada madaxtinimada ay la filayo inay dhawaan ka dhacdo wadanka Soomaaliya. xafladani ay soo qaban qaabiyeen dadweynaha reer Bristol ayaa dadkii ka soo qayb galay iyo kuwii ka hadlay waxa ay u muujiyeen taageero dhan walba ah. dadkii ka hadlana hadaladooda waxa kamid ahaa anigoo ku hadlaya magaca odayaasha reer Bristol aqoon-yahanada haweenka dhalinyarada marti sharafta kale mar labaad gudoomiye waxaan kugu soo dhaweynayaa Bristol ku soo dhawaad Bristol guddiga noo yimid oo Yaasiin hogaaminayo oo xisbiga mahaantii aan ka maqsuudnay oo laga yaabo inaan xubin ka noqon doono u rajaynayno wadanka inuu qabsado waxaan leenahay waxaad ka bilowdeen kambeynkiina magaaladii ugu muhiimsanayd UK. Yaasiin wuxuu ku helayaa haddii alla idmo asaga oo ah dadka hadda loo baahan yahay waayo waa nin dhalinyar sida ka muuqata aniga runtii hore iskuma aqoonin laakiin igu filan hadda waqtigeeda aan arkay waa nin young man waxbarasho leh maalinta ilaahay ku garto riyada aad ku jirtiin waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan suud iyo looradba dariishada iska dhaaf albaabka iska dhaaf dariishada inay furnaato aniga wiilkayga waxaan ku biirinayaa iyo walaalahay hor fadhiya inaan u sheego wax aan tabanayo dalka inuu u baahan yahay gurmad xoog maruu ka hadlayay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga SSUB mudane Xaaji Boolay ayaa waxa uu ku nuxnuxsaday siyaasadda xisbigooda iyo wax qabadkooda isla markaana ku soo dhaweeyay mikrofoonka mudane Maaxi oo ah musharax u taagan xisbigooda ee xilka madaxtinimada wadanka Soomaaliya tartanka madaxweynenimada ee ummadda Soomaaliyeed inuu xisbigeena uga qayb galo makrofoonka ku soo dhaweynaya gudoomiyaha ama iyo tartamaha madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحا شرف إيه مانتا هنا اللي كسوا بوغضو مقالة بريستل runtii sharaf weyn ayay ii tahay sida wanaagsan ee quruxda ku jirto heerka qaran waa idinka aqbalay وانا شرفتهن إلهي نحن شرف وحان لايه وحان هاي لي شكري إلهي شهادة ترانا نين آن شكر في قارة شبهين بانا نين آن شرفت الصومالية شيء سيسن بانا وحان أؤمن إنا الصومالي نمو iyo Soomaaliya iyo magaca Soomaaliyeed inaad ila doontaan weyn waxaan rabaa walaalayaal qabiil mar walba in laga dheeraado Soomaalidu dareen mal darxumada qabiilka dulli iyo qandaash xamdi meesha laga rabay xawli bay ku maray ruux xariirtu jamanta dawdu ku jabeen xaga sheeka qabiil ninka sida wax loo xal ugu xeelad badanaa xaaji hebel leeyahay waxaan rabaa walaalayaal dadka sharafta leh gabdhaha walaalaheeda ee magaaladan Bristol ugu soo dhaweeyay talaabtoodina ay ka timaado waxa waa in la shaqeeyay waxa naga dhiman waa sharafta Soomaaliyeed inay soo celin qadiyada Soomaaliyeed inay u istaan mabda'a Soomaaliyeed inay u istaan gabdhaha walaalaheeda oo ayagana isxilqaan dhalinyarada caawa halkan ka organize ahaayeen inay ku soo biirtiin organization-ka xisbiga inay ku soo biirtiin xisbiga waa xisbiga إن شاء الله تعالى أنا هدي واحد كتب بيه وحان أهي مشرحة مدحوينها أمة الصومالية. السلام عليكم. waxaan kan caawinay wararka Yaasiin ina qasab wadgaraya maqsad iyo waxa ay u isticmaalaan especially aniga asay kanahan all my fans waxaan leeyahay wararkeen future cusub wada
كل ولا غير دوينه راعي كلام يلا سموته صفوات يسقى سيا waxaan uga mahad celinaynaa intii ka soo qayb gashay xafladan qiimaha iyo qaayaha leh oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Bristol dhalinyarada odayaasha Kina Adan Abdulle Universal TV Bristol